Majalada Forbes ee ka faallata hodantinimada dadka adduunka ayaa toddobaadkan dad badan ka yaabisay kadib markii ay tabisay in gabadha xagga baraha bulshada caanka ku ah ee Kylie Jenner ay ka mid noqotay dadka bilyaneerka ah ee weliba iyagu tabcaday hantida. Dhibka jira ayaa wuxuu yahay in gabadhan ay markii horeba ka dhalatay qoys taajiriin ah, waana taas sababta dadku ula yaaban yahay sheekada Forbes. balse sidaas oo ay tahay dadka bilyaneerka waaba yar yihiin adduunka. Xaqiiqdiina dadka haysta wax ka badan 500 milyan oo dollar waxa ay dhan yihiin 5,700 oo qof. Dadka sida dhabta bilyaneerka waa aad ayay uga sii yar yihiin tiradaas. Haddaba sidee bilyaneer lagu noqdaa ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeena maanta. Bilow shirkad aad leedahay. Marka la eego dadka kaalmaha koowaad kaga jira diiwaanka dadka bilyaneerka ah, waxaa ka mid ah kuwa leh shirkadaha waaweyn sida Jeff Bezos oo leh shirkadda Amazon, Mark Zuckerberg oo leh Facebook, iyo Jack Ma oo leh shirkadda Alibaba. Inkastoo sifada lagu saleeyo qofka loo aqoonsanayo inuu isagu lacagta tabcaday ay iska adag tahay, haddana waxaa muuqata in dadka shirkadaha waaweyn madaxda ka noqda ay jirto sabab loogu fishay inay lacag badan helaan. Sababtoo ah mushaharka ay qaataan ayaa aad u badan, waxaana la sheegay in qofkii uu qaato 361 jeer wax ka badan inta uu qaato qofka shaqaalaha caadiga ah. 2. Lacag dhaxal ah. Meel ka mid ah marka 3 meelood loo qaybiyo dadka ku jira diiwaanka majalada Forbes ee bilyaneerka waa kuwa lacaga ka dhaxlay reerahooda. Waxaa ka mid ah 7 qof oo ka tirsan qoyska Walton kuwaasoo dhaxlay shirkadda Walmart, iyo xubnaha qoyska Francis Petitcourt Meyers kuwaasoo dhaxlay shirkadda agabka dumarka ee L'Oreal. Waxaa jira sababo dadkan ka dhigaya hormoodka hantiilayaasha, waxaase ugu muhiimsan sababta inaysan bixin cashuur badan. Waaba haddii la cashuuree. Daraasad la sameeyay waxaa lagu sheegay in 25% ama 30% cashuuraha lala dhunta adduunka ay mas'uul ka yihiin dadka tirada yar hantiilayaasha ah. 3. Noqo dilaal maaliyadeed. 40% ka mid ah dadka soo galay diiwaanka Forbes ee bilyaneerka ayaa dad shaqadoodu tahay dilaalinta maaliyadeed, kuwaas oo dad iyo shirkado lacaga ay ka qaateen meelo kala duwan ku maalgeliyay kadib macaash tiro badan oo ay ka sameeyeen. 4. Ha ka welwelin inaad shuruucda raacdid. Dadka taajiriinta waa kuwa had iyo jeer ay isqabtaan sharciga, waxaana ka mid ah Bill Gates oo sanadkii 1990kii dowladda Mareykanka ay ku soo oogtay dacwad la xiriirta inuu ku dhaqmay ficilo sharci darro ah oo ka dhana xeerarka tartanka xalaasha ah. Sidoo kale midowga Yurub ayaa marganax badan ka qaaday Bill Gates. mise ahaan keligiis, waxaaba jira bilyaneero badan kuwaasoo siyaabo kala duwan sharciga u jebiyay iyaga oo lacaga aad u badan ku sameeyay sidaas.